bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada macadka isbeen oo aad uga barateen waxyaalaha horumarinta dadka bini'aadanka ah inuu mar walbo casharo idinkaga soo duubo maanta insha Allah waxaan gelaynaa waxyaalo oo dadka mustaqbalkooda wax badan ka bedeli kara sida aad la socotiin adduunka waxaa jira waxyaalo muhiim ay tahay inuu qof kasta ay ka fakaro marka uu koonkan ku soo fiiro waxyaalaha ugu weyn waxaa kamid ah qofku inuu adduunka inta uu joogo oo magac sameeyo ama hanti sameeyo si oo bahalkii ahaa berri adduunka wax looga dhaxlo ama xirfad ama aqli ama falsafad looga dhaxlo maanta insha Allah waxaan rajaynaynaa halka inaan kugu soo bandhigno 9 qodob ama 9 industry oo lacag laga sameey karo adduunka dadka jooga inta badan research lagu sameeyay baaritaan lagu sameeyay oo la dhihi karo waxa waaye lacag ayaa laga helayaa sida ogsoontihiin qof kasta wuxuu ku fiican yahay qayb ayuu ku fiican yahay adduunka ma jiro dad dhammaan waxyaalaha ilaahay koonka keenay ku fiican qof kasta meel uu ku fiican yahay marka qof kasta wuxuu leeyahay marka inuu doorto industry oo lacag ka sameey lahaa kana leexdo midii oosan lacag sameey karin inkastoo lacagtu ay markasta u baahan tahay dadaal iyo juhdi in lagu baxsho ay u baahan tahay haddana waxaa jira waxyaalo dadka ka saacidi kara oo fieldiga ayaga ay jecel yihiin ama ay ka bixi karaan muujinaya marka waxyaalahaas waxa kamid ah waxaan insha Allah adduunka research laga sameeyay ilaa 9 marka waxaan baran doonaa insha Allah haddii la yiraahdo 9 kan qaybood oo laga sameeyay research adduunkana insha Allah haddii la yiraahdo aad meelo badan ka arki kartaan haddii aad bartaan meelahaas marka insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah inay noqdaan 9 kan meelood oo number 1 ay tahay financial management number 1 tahay financial management number 1 tahay ayaan insha Allah marka koowaad financial management maxaa la yiraahdaa forex ko kale iyo waxyaalahaas ma ahan iyo waxyaalahan kale oo bitcoinska iyo waxyaalahaas ma ahan financial management waxa laga wadaa bangiyada sida lacagaha loo maamulo lacagaha dadka la deemiyo oo lacag laga helo waa idin banaan tahay waxyaalo badan oo waxa jira la yiraahdo microfinance la yiraahdo tusaalahan qof ayaa wuxuu sameey karaa asagoo bangi ahayn inuu meel furto qofka alaabtu rabo u soo gado lacag saarto qofkaasna deyn ku siiyo asagana lacag ka soo yaryareysto marka qofkii sameey karo waa financial management yaa la yiraahdaa shirkado badan oo adduunka ah waxa jira arimahaas ka taajiro oo malaayiin dollar ka helay marka waxa waaye financial management-ku muhiim waaye waxa kamid ah kambaniyada insurance-ga oo dadka inta lacag ka aruuriyaan qofka daawo u tagdhahay isbitaal qofka waxay leeyahay marka jirato ayaan bahalkii isbitaal ku geynaynaa marka qofka inta jira kartay inta jira karin intaba inta wuxuu isku kolkolaaraystaan ay waxay ka sameey karaan lacag meeshaas waxa kale oo jira wax la yiraahdo technology ayaa jira okay technology-da ayada waxa way adduunka waa la socotaan waxa lacagta ugu badan laga sameeyo waa technology-da oo waxa kamid ah Facebook oo kale Google oo kale iyo kuwa kale fara badan oo bahalka lacag laga sameeyo waxyaalahaasna waxay ku jiraan waxyaalaha ugu waaweyn oo lacagta laga sameeyo okay waxa kale oo jira health care wax la yiraahdo health care kan waxa waa caafimaadka institutionada ama warshadaha ama bahalkii qaybaha caafimaadka waxa wax badan dadku inta badan tusaalahan dadka hadda diet-ka hadda kale Soomaaliya waa la soo baranayaa dad waxa jiro $50 $100 ku bixinaya si ay cunto dheeli tiran ay u isticmaali lahaayeen diet la yiraahdaa dadka
consultation la siinaa sanadkii waxa la leeyahay 4 biloodba mar imaw waa lagu jeekima xaaladaada waa la soconaa 6 biloodba mar imaw waa kaasa marka qof kasta oo adduunka saaran wuxuu ku fakarayaa in uu caafimaad iyo waqti dheer oo sii noolaado waxa kale oo jira marka real estate-ka sida ala socotaan waxyaalaha ugu waaweyn oo laga taajiro ayay kamid tahay adduunka intiisa kale iyo Soomaaliya intaba Soomaaliya hadda waxa jira dad oo wax badan ka lacagaysta real estate-kaas dhulka ay dhisayaan way sii gadayaan waxa laga yaabaa guri ay ku gadeen ama ay ku dhiseen 10,000 ama 15,000 isku dhamaad inay 100,000 gataan marka real estate-ka sababta oo keenaysana waxa waaye adduunka markasta dadku waa sii korayaan dadku way badanayaan tusaale ahaan hadda 2025 kale waxa laga yaabaa 8-9 milyan oo qof in marka real estate-ka dadka hadda adduunka maalin la keeno maalinta ka sii dambeysay way sii kordhayaan tusaale ahaan hadda magaalada Muqdisho kale waa aragteen dhulalka waa sii soconayaan waa qaaliyoobayaan dhul raqiis ah ma jirto maalinta ka sii dambeysay waa sii qaaliyoobayaan ya marka waxa waaye waxa keenaya dadka ayaa badanaya adduunka real estate-ka la yiraahdaa dhulku mid kale waxyaalaha ugu weyn waxa waaye oo laga ilaaliyo adduunka hadda dhulka asaga cabasha kama jirto dhib kama jiro laakiin hadda Soomaaliya xoogaa sharciyadiisa in wax xoogaa ka yimaadaan laga yaabaa laakiin qofka u dhawr adeega oo xoogaa wax badan iska fiirsho oo meelo badan iska fiirsha dhulkii oo hal sano ka hor ka bixiyay 5,000 waxa laga yaabaa 25,000 inuu u tago qofkii marka waxa dhulka waxyaalaha wuxuu ku jira oo lacagta laga helo waxa kale oo jira education waxbarashada jaamacadaha iskuulaadka waxyaalahaas ayagana waxay ku jiraan waxyaalaha waxa loogu taajir og yahay oo dadku ay lacagta ka helo og yihiin waxa laga yaabaa cunug magaalada Muqdisho waxa jira meel $200 cunuga waxbarasho looga dhiibayo waxa kale oo jira meel $50 ah waxa kale oo jira meel $10 waxa kale oo jira meel $20 yani marka meeshas maxaa ka dareemaysaa cunug xamar jooga ayaa $200 loo quuraa in uu wax ku barto $200 in wax ku barto ayaa loo quuraa marka in qof kasta oo waalida wuxuu ku fakaraa ilmihiisa inuu wax barasho fiican ay u helaan marka aad iyo aad ay u tahay meelaha hadii qofku wax barashada iska leh oo tayada ku dadaalo nidaamka ku dadaalo work process-ka ku dadaalo hanaanka oo business process-kiisa oo si fiican iska saxo sida ilmuhu wax u barlayaan sida loo control lahaa sida waqti ilmaha loogu ilaalin lahaa sida macallimiinta loogu xuli lahaa haduu intaas ka fakaro lacag badan ay ka sameynayaan waxa kale oo jira wax la yiraahdo entertainment waxa la yiraahdaa madadaalada waxyaalaha oo madadaalada ah ayaa la yiraahdaa entertainment waxyaalahaas oo kale wax badan laga helaa waxa aragtaan hadda fiidiyoyada wiilasha dhalinyarada ah ama gabdhaha dhalinyarada ah TikTok iyo waxyaalahaas iska soo duuba ama iska duuba bahalkii ahaa Facebook ku duuba ama YouTube ku duuba dadka oo entertainment ka shaqeeya waxyaalaha social-ka iyo waxyaalahaas ka shaqeeya waa ka views badan yihiin dadka ka shaqeeya waxyaalaha kale sida ama kanaal waxbarasho ama kanaal cunto way ka wax fiirsi badan yihiin waxa kale oo jira transportation-ka diyaaradaha adduunka waxyaalaha adduunka laga taajiro ay ku jiraan transportation-ka bahalka food delivery-ga maal laha waxyaalahaas oo dhan transportation laha energy ayaa la yiraahdaa tan waa korontada waxyaalaha waxay ku jirtaa looga taajiro adduunka inta badan waxa waaye qof kasta adduunka jooga uu u baahan yahay koronto u baahan yahay ama mobile ha jaajaraysto ama bahalkii dab ha ka shito ama koronto ha ka shito ama bahalkii ahaa kuwan shirkadaha energy ka shaqeeya tusaale ahaan work process-ka waxyaalaha shirkadaha ka shaqeeya sida bahalka mashiinada ka shaqeeya la ka jarjaraya koronto kuwaas dhan lagu shaqeynaa marka energy waa loo baahan yahay cuntada mid ugu dambaysa waaye aan ku soo gabagabeynayna cuntada ayadana waxa waaye waxyaalaha lagu taajiro ay kamid tahay waxaana kamid ah in qofku cunto fiican iyo nidaam fiican oo u sameeysto tastiga iyo waxyaalahaas iska ilaaliyo waxyaalaha dadka inta badan cunno way cunayaan wax kasto ay haataba cunno way cunayaan dadku marka cunadana waxay kamid tahay waxyaalaha laga taajiro laakiin qofku waa inuu iska ilaaliyaa si fiican oo uga fakaraa qof kasta oo adduunka jooga waxyaalahan wuxuu wax uga keeni karaa
inuu khibrad u leeyahay background history wax la yiraahdo skills inuu leeyahay xirfad inuu leeyahay inuu dadka maamuli karo inuu dadka la macaamili karo waxyaalahan oo dhan maamul dad ayuu u baahan yihiin oo dadka in si fiican loogu shaqeeyo la qanciyo ayuu u baahan yihiin waxa kale oo jira commitment inay qofku ka go'an tahay oo ay qofka ka go'an tahay ayadana waxba looga helaa marka intaas qof markuu isku darsado background history skills fiican iyo commitments inuu ka go'anta waxaan inuu ku guul keeno intaas doo isku helo qofkaan uu ku guuleysanayaa lacag badanna uu ka sameeyaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ma santiin wixii aan qaladna waa nafi shaydaan waxa saacnana Allah subhanahu wa ta'ala wadiisa ku imaatay wixii share iyo comment ah waa xaqiina insha Allah assalamu alaykum